صاحبي يا صور وهذا دمانتين سوري خطك نقعي إن شاء الله وين حضن وين وضننا أبدأ كده نقلنا يا هذا مقشان إن شاء الله وقلت كونتي وصقرة قلت كونتي وصقرة إن شاء الله وي هاي صاحبي المركبة عليها هذا الأستاذ من غشاء صاحبي يا طيب مقشان إن شاء الله قيبتكم أنت بالصورة أهلين حاج محمود. عاديات هذاك مغلا أستاذي يوسف يعني ما مقشت عاديات المناسب في عمه وكون مقلا عدك أقول سوينا يموقع قبل يسوق عليه إن شاء الله أستاذ هذا ما أصنت هاي تصبح إن شاء الله إن قبل وانضرنا وإن كلام علي يا أستاذ محمد عقا إن هذا نجاح بالشيء مدرسة فهي بودكاست أستاذ مركز وان كسود وينايا ما أنت عوان كان وحوها isbeddelka dhabta ah iyo noloshan casriga ah sida qofka dhalinyarada ah uga faa'iideysan lahaa mawduucaas been insha Allah wax weeyaan falaqayn doonaa asxaabtana insha Allah way nala socon doonaan oo wixii insha Allah commentiisa halkaas inuu ka akhrisan doonaa ustaad soo dhawow marka hore haddii aad bal naftaada nooga waranto horta alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah waad mahadsantahay walaal maxamuud ilaahay ku muxuu ahaay ka abaaliyo shaqadan quruxda badan ee bulshada iyo ummadda u hayso waa bil Ramadaan oo dadku inta badan de safar iyo nasasho iyo waxba iskaga mashquulsan yihiin marka mar haddii aad ugu istirtay oo aad bal tiri aynu bulshadii aynu dib isku xasuusino fariimihii muhiimka ahaa horta aad baan madhaa ilaahay kuugu weydiinayaa inuu ajar iyo abaal fiican kaa siiyo waana ku dhawahay barnaamijkaaga faahiya podcast oo aan muddooyinkii ugu dambeeyay halkan aan kala socday oo runtii dad miid iyo labeen ahaad ku soo qabanaysay marka horta halka ka wad baan ku leeyahay shaqada ilaahayna kula garab galo waana ku dhawahay saaxiib mawduucan maanta dabka iyo daawaha inoo saaran isbeddelka iyo nolosha casriga ah insha Allah waxaan rajaynayaa inaynu innaga iyo walaaluhuba si fiican aynu uga faa'iideysano have a welcome waan dhawahay walaal thank you هذا ما سنتهي أستاذ توسبين وقول دونا إن شاء الله بهذا نقول أنت مرك هراء إنه كشك إنه وامحي قالوه إنه نمقل يعني نويدي ولا قالوه هرتين إنه نمقل يعني نويدي واي أصحابته إن شاء الله هذا ما سنتهين داوشين إنه قرصها بدن سي إن شاء الله سمع قلنا قيمتكم تسيب صقر إن شاء الله هدي أسمعنا مغشان وأنو إذن مقلا haddaadna maqashaan haa soo qora haddii aydaanna maqlinna maya xamse wixii waan ku maqalnaa go ahead haddaba go on aynu hore uga soconna haddaba masha Allah ustaad isbeddel maxaynu ku qeexi lahayn horta isbeddel ama change ama tagyiir waxa afka carabiga lagu yiraahdo marka laga warramayo intaas oo qeexitaan ama terminology oo kala duwan ama definitions ah oo kala duwan ay culumta inta badan culimada psychology-ga iyo cilmi nafsiga ku takhasusay ay ku muxuu ahaay qeexaan marka si fudud mid aynu inagu Soomaali ahaan fahmayna hadii aan ku qeexo
waxaynu odhan karnaa waa qofka oo ka dhaqaaqa meel ama goob ama wax uu ahaa oo u dhaqaaqa wax kale oo uu jeclaan lahaa inuu sameeyo ama meel kale oo uu jeclaan lahaa inuu aado marka waa qofka meel ka tegaya oo u dhaqaaqayo tegaya meel kale marka meesha laga dhaqaaqayo meesha la tegayo macnayaal fara badan iyo magacyo fara badan baa la siin karaa marka horta isbedelku waa inuu qofku meel ka dhaqaaqo oo uu meel kala tago ayaynu isbedel ayaynu ku qeexi karnaa marka maanta waxaanu ka sheekaysanaynaa ma aha qofku inuu meel ka dhaqaaqo uu meel kala tago ma waxa weeye meeshan laga dhaqaaqayo meeshan la tegayo between spacekan u dhaxeeya shaqada la qabanayo ayaynu doonaynaa bal maanta inaynu qodobo dhowra ka taabanno marka si kooban isbedel taas baynu ku qeexi lahayn toosadaan u galno maxaa la gudboon qofka dhalinyarada ah ee nool noloshan casriga ah si uu isbedel dhaba ula yimaado wallaahi waa su'aal muhiima oo aan isleeyahay malaha meel fog baad ka keentay xaaji maxamuud qof kasta oo dhalinyaro ah oo aan isleeyahay noloshan casriga ah waxa weeye uu nool yahay howlo fara badan baa la gudboon si uu isbedel taabagala ugu dhaqaaqo isbedelka horta sidiisaba waa labo waa isbedel togan iyo isbedel taban isbedel qofka noloshiisa wax ku soo kordhinayo isbedel taban ah iyo isbedel togan oo nolosha qofka wax ka dhimaya marka su'aashan waxa isleeyahay waxa ay ku saabsan tahay isbedelka qofka noloshiisa wax ku soo kordhinaya haddaba qofka dhalinyarada ah ee aan isleeyahay waxa weeyaan isbedel buu u baahan yahay qodobada dhowr looga baahan yahay waxaan odhan karaa kow qofka horta inuu ku baraarugo oo uu dareemo inuu isbedel u baahan yahay dadku inta badan way iska nool yihiin ma dareensana inay isbedel u baahan yihiin marka horta ugu horreyn waxaynu u baahannahay inaynu ku baraarugno oo aynu dareenno inaynu isbedel u baahannahay baraaruga qofku marka uu helo ee uu waxa weeye awareness-kaasi uu ku war helo labadan qodob baa la gudboon marka inuu ku tallaabsado qodobka koowaad waxa weeye inuu qofku weydiiyo isbedelka uu u baahan yahay waa noocma what kind of change do I want isbedel nooc ma ah baan u baahanay ma xagga caafimaadka inaan isbedel ka sameeyaan u baahanahay ma xagga dhaqaalahayga inaan isbedel ka sameeyaan u baahanahay ma xagga aqoontayda iyo ogaalkayga iyo karaankayga iyo aqoontayda iyo kasmadayda inaan isbedel ka sameeyaan u baahanahay ma waxaan u baahanahay xagga xiriidhadayda iyo connectionskayga iyo networkayga inaan isbedel ka sameeyo qofku waa inuu horta cayimaa isbedelka nooca ah uu u baahan yahay waxaa la idhaahdaa qofku haddii aanu garanayn meel uu u dhaqaaqo ama haddii aanu garanayn destinationkiisa iyo directionkiisa dhinacii u dhaqaaqaaba waa dhankii kale bahalka waraabaha la idhaahdo waxa weeye mucjisooyin yaabla buu leeyahy dhinacii aad u eridaba waa kuu hor cararaya marka inaynu sifaxa waraabo yeelanno uma baahnin waxaynu u baahannahay isbedelkii markaynu ku baraarugno inaynu u baahannahay what kind of change isbedel noocba ah baynu u baahannahay isbedelka aad u baahantahay markaa waa inaad garato isbedelka markaad garato waa inaad markaa instructionskii iyo toolskii iyo equipmentkii kuu suuro gelinayay inaad isbedelkaagaasi ka shaqaysiiso oo aad midho dhal iyo natiijooyin ka abuurto waa inaad diyaarsato marka equipmentska iyo toolska aad u baahantahay markaa waxa ka mid noqon kara inaad muxuu ahaaye aqoontaada iyo xirfadahaaga aad dhisto waxa ka mid noqon kara inaad cibaadada xiriirka iyo ilaahay aad la leedahay aad xoojiso waxa ka mid noqon kara xariga adiga dadka isku kiinhaya iyo connectionskiina inaad aad u daryeesho waxyaalo fara badan baa ka mid noqon kara marka ugu horreyn qofku waa inuu horta awoodda baraaruga waa inuu helo the power of awareness inuu isbedel u baahan yahay labo waa inuu baadho oo uu ogaado si fiican ay ugu caddaato dhinaca iyo laanta uu isbedelka uga baahan yahay saddex markaa waa inuu ku dhaqaaqo isbedelkii howlgelintiisii iyo fulintiisii inta badan waxa ugu adagna waa tallaabadan saddexaad weeye inuu qofku actioniska iyo tallaabooyinka uu isbedel ku abuurayo inuu ku dhaqaaqo marka taas baan isleeyahay malaha waa munaasab inuu qofku ku baraarugo su-aashaas si uu muxuu ahaye jawaab fiican ugu helo maasha allah wallahi ustaad waa wax ka bixisay tusaale aad u fiican markaynu joogno isbedelka qofku markuu la yimaado isbedel oo uu rabo inuu meel ka tago oo meel kale u guuro sidee buu si dhaba ugu qaadan karaa go'aan uu waxaan u ka tegayo si uga tago
wuxuu u qaadan karaa horta isbedel sidiisaba waxa jira in sources ama in meelo uu ka soo burqado ilaa uu isbedelku ka yimaada jira marka si uu qofku go'aan dhaba oo kaba dambaysa oo go'aan oo bilaa labacleyna oo bilaa laba bogleyna oo qofku u qaato waa inuu horta isweydiiyo sababta uu isbedelka u sameeyo taasoo noqon karta laba shay kow qofku inuu isbedelka u sameeyo liajli culays iyo mashaakilaad iyo duruufo haysta oo uu doonayo inuu ka badbaado oo uu ka baxsado si uu baraaro iyo barwaaqo u gaaro iyo labo in aanay dhibaatooyin iyo mashaakilaad iyo mas'alooyin adag oo nololeed qofka aanay haysane uu damac iyo hilin iyo wax kale ay u muuqdaan oo hiigsi iyo yool kale uu bidaansado kadibna uu isku dayo yoolka inuu gaaro marka isbedel sidiisaba waxa la yiraahdaa qofka labada shay ba ku dhaliya inuu isbedelkiisaasi go'aan adag ku qaato si uu u sameeyo labada shay ba ku dhalinaya imma inuu duruuf ka cararayo hadaanay duruuf haysanna imma inuu han iyo himilo uu leeyahay uu ku cararayo marka qofka ama waxbu ka cararaya ama waxbu ku cararaya isbedel marka laga sheekeenayo waxa weeye ama culays iyo duruuf ku haysta doonaysa inaad ka baxsato si aad noloshaada xal waara ugu hesho ama se duruuf iyo culays baan ku haysane yool iyo han iyo himilo ku muuqata ayaa doonaysa inaad rumayso kadibna halkaas aad ku cararaysaa marka labada qofku horta waa inuu horta ogaado ta uu isagu xaaladda uu ku jiro qofku waa inuu ogaado ma duruuf ba haysto uu doonayaa inuu ka baxsado siduu go'aan dhaba u qaato isbedelka si uu u sameeyo mise duruufi ma haysata ee yool iyo himilo ayuu doonayaa qofkan inuu baaxsado oo taasuu doonaya inuu go'aanka u qaato labadaas qofka marka ay u kala cadaadaan buu qaadan karaa go'aanka munaasabka ku ah marka haddii hore uu qofku xaaladda uu ku jiro ay xaalad dhibaato iyo mashaakilaad iyo duruufo ah ay tahay waxaan kugula dardaarmayaa qofkaasoo inaad qaadato go'aan oo kaba dambays ah oo kuu suuro gelinaya haddeer wixii laga bilaabo inaanad ku sii jiri doonin duruuftaasi intaasi kugu filan duruuf mashaakilaadka nolosha ayaaba kaaga badanba duruufta markaa ku haysata marka noloshu sideedaba waa iska mashquul iyo duruuf iyo mas'alooyin iyo imtixaan siduu ilaahayba quraankiisa inoogu sheegayo marka duruuftii iyo culaysadii nololeed ay haystay haddii weli ay adiga ku sii dheer yihiin duruufo kale oo nololeed oo gaar kula ahi u malayn maayo nolosha inaad isbedel taabagal ah aad samayn doonto waxaan kugula dardaarmayaa qofkaasoo inaad ku dhaarato go'aan adag oo odhanaya hadda laga bilaabo duruufta dhaqaale la'aanta duruufta aqoon la'aanta ah duruufta nolosha wax qabsi la'aanta ah kuma sii jiray go'aanka waa inaad qaadato sababtoo ah haddaad go'aanka qaadan weydo maanta ma garanayo gooraad qaadan doonto xaaladda duruufta iyo nolosha adag haddii aanad ku jirinna ama qoyskiinu haddii aanay ku jirinna waa inaad yool iyo muxuu ahaayey ku laasha hankaaga meel sare marka waa inaad hankaaga isku daydo maadaama aanay duruufa ku haysan inaad meel sare qabsato hankaaga halkaa sare aad ku laasho kadibna aad isku daydo hankaa sidii aad u gaari lahayd inaad go'aankaba dambaysa u qaadato si aad meesha u gaadho ood yoolkaaga u rumayso marka taas baan isleeyahay qofka way u suuro gelin karaan go'aano dhaba oo muxuu ahaayey suuro gelinaya inuu xaqiijiyo isbedelka uu qofku baadi goobayo masha Allah ustaad ma jiraan in caqabado maangal ah oo qofka dhalinyarada ah u diidi karaa inuu isbedel sameeyo waxyaabo qofka u diidi karaa inuu isbedel sameeyo noloshan hadda ay ku jirto sidee xalku ah wallahi waa su'aal cajiib weeye way jiraan caqabado maangal ah oo ciida ka badan baa jira oo qofka dhalinyarada ah ee casriga nool hor taagan oo is oran karno isbedelka uu diiday kow caqabadaha maangalka waxa number 1 ka naftiisa waxa la yiraahdaa cadawga nolosha ugu xumeeya ugu darani waa naftaada sidoo kale hiiliyaha iyo garabka iyo taakulada ugu wanaagsan cid aad ka heli kartaan waa naftaada halka aan mar labaad ku celiyo way jiraan been niri caqabado maangal ah oo qofka dhalinyarada hor iman kara si isbedel u keeno caqabada ugu weyn ee cadawga ugu horeeyo qofka ku noqon karta waa qofka dhalinyarada ah ama qofka isbedel doonka ah naftiisa sidaas la mid ahna qofka hiiliyaha iyo garabka ugu weyn ee uu caawimo iyo taakulo iyo miciin u bidi karaana waa isla naftiisa marka horta ugu horeyn waa inaad ku baraarugtaa inaanay naftaada caqabad ka weyni baanay ku haysan caqabad naftaada ka weyniba
inaanay ku haysan dagaalkii Badar Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu markay ka soo baxeen waxay yiraahdeen intay yara nasteen ay warbihii iyo hubkii dhigteen bay yiraahdeen dagaalkii ugu cuslaabaynu ka soo baxnay aynu nasanno hadal caynka soo kala kadibna Nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo oo muxuu haayay u maan celinaya wuxuu ku yiri may dagaalkii yaraa baynu ka soo baxnay dagaalkii yaraa ama jihaadkii yaraa baynu ka soo baxnay jihaadkii weynaa baa inoo haray hadda jihaadka weynna wax kala ma hayne waa jihaadu nafsi weey inaad naftaada la jihaado oo aad barta ku dhigto oo aad dirqido oo aad danteeda raaciso naftu wax iska jeceshay inay hawadeeda raacdo oo ay iska baashaasho oo ay iska raaxaysato ay jiwiyo qurux badan iska qaadato laakiin danteedu inta badan taa kuma jirto danteedu waxa ku jirta in la dirqiyo in la khasbo in la sanduleeyo oo loo sheego hawlo muhiim u ah mustaqbalkeedu inay u yaalaan oo aanay fadhi iyo warwareegaan meesha u oolin marka koow caqabada maangalka ah ee ugu horeysay oo qof kastaaba ay tahay inuu ku baraarugaa waa caqabada naftiisa weeye cadawga ugu horeeya naftu qofka soo hujuumi karaana waa naftiisa weeye waa koow caqabada labaad oo qofka dhalinyarada ah u diidi karta isbedel ee maangalka iyaduna ah waxa weeye waa dhaqaale la'aanta weeye waa lack of financial weeye waa dhaqaale la'aan weeye dhalinyaradu inta badan dhaqaale ma haystaan inta badan saddex shayba la isku helo dhaqaale badan waqti firaaqa iyo awood dhameystiran qofka dhalinyarada isagu dhaqaale ma haysto laakiin laba awoodood kala haysta waa inuu tamar iyo energy iyo daaqad aan inaba caadi ahayn oo dhamaanayn inuu haysto iyo labo waqti firaaq ah oo wuxuu ku qabtaan uu garanayn inuu haysto qofka waayeelka ah ee weyn isagu labada mid baan u haysan oo ma haysto labadaaba ma haysto oo ma haysto de waqti firaaq oo danihiisa iyo hawlaha muxuu ahaayay ka madaxa banaan shaqooyinkiisa uu ku qabsan karo sidoo kalena ma haysto energy iyo daaqad uu ku qabsan karo hawlaha laakiin qofka weyn dhaqaalo haysta marka inta badan dhalinyarada caqabada ugu weyn ee labaad iyaduna soo hor istaagi karta waxa weeye si isbedel lagu dhaqaaqaan waa dhaqaale laan weey inaanay dhaqaale ay ku tallaabsadaan oo ay hawlahooda dhaqaaluhu waxa la yiraahdaa waa dhiigga waa nolosha weey sida dhiiggeenu uu jirka ugu fududeeyo circulation-ka ee uu inoo diiriyo ee uu oxygen-ta inoogu qaado ee uu carbon dioxide carbon-ka uu dibadda inooga tuuro si lamid ah ayaa uu inoogu qaabilsay nolosha marka la joogo dhaqaaluhuna marka caqabada labaad ee dhalinyarada inay tallaabsadaan oo ay hore uga dhaqaaqaan halka ay joogaan u diidaa waxa weeye waa dhaqaale la'aan weey qofka dhalinyaradii marka waa inuu ku baraarugo inuu u baahan yahay kab dhaqaale oo ku tallaabsado si uu u sameeyo isbedelka u baahan caqabada saddexaad ee ugu weyn ee kaba weynba labadaasina waxa weeye waa lack of knowledge waa aqoon la'aan weey ignorance bayna haysta aqoon la'aan bayna haysta adduunyada wax kasta oo ka maqani waxa uu kaaga maqan yahay aqoon la'aanta ay ka haysa shayga uu kaaga maqan maanta waxa aad haysataa waa wax aad aqoon iyo waaya aragnimo dhameystiran aad u leedahay waxa ka maqan waa waxaanad aqoon iyo waaya aragnimo aanad u lahayn marka inaad ku dadaashaa si waxa ka maqan aad u heshay isbedelka ah inaad aqoon u yeelato sidii waxa aad u heli lahayd marka saddexdaas shay baynu oran karnaa ama waa caqabadaha ugu waaweyn ee maanta qofka dhalinyarada ah casriga nool soo wajihi kara hujuumi kara ustaad ma sha Allah saddex qodob oo maangal ah oo ay ugu horeyso inuu qofku nafta ka adkaado aadiya waxyaabaha badana dhalinyaradan haystana waa labada tan u horeysay tan u dambayso aadiya in qofku dhanka aqoonta iyo wax akhriska iyo tan u horeyso qofku sidoo naftiisa uga adkaan lahaa aadiya marka nafka adkaanshiyaha inuu qofku naftiisa hago oo waqtigiisa uu ku hago oo waqtiga ugu talagalay waxyaabaha ku qabsan lahaa naftiisa ku hago aadiya marka waxyaabaha qofka tashuushka ku furi kara oo uu u diidi kara inuu waxyaabo u qabsado oo naftiisa ka adkaado maxaad koow iyo laba dhihi lahayd dhanka dhaqaalaha oo dhalinyaradu ay sugaaneen in qofku ama xirfadi u timaado ama shaqo u timaado sidee ugu tarin lahayd inuu la yimaado hal abuur iyo inuu isagu wax weeyaan uu samaysto fursad hal mid